السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii nuxurka buugaagta oo aala kaga hadallo nuxurka iyo qodobada ugu muhiimsan ee buugaagta. maanta waxaanu eegi doonaa buug la yidhaahdo Ego is Enemy, waxaana buuggan qoray qoraal reer Maraykana oo la yidhaahdo Ryan Holiday, kaasoo ku takhasusay hab isticmaalka warbaahinta ama media strategies. Ego is Enemy waa buug ka hadlaya dhibaatada ay leedahay qabtu ama eegadu iyo sida ay dadka noloshooda u burburiso ugana hor istaagto horumarka nolosha gees kastaba. haddaba su'aasha ugu horreysa ee uu qoraagu kaga jawaabayo buugga waxay tahay, waa maxay eegadu? inkastoo ay jawaabtu tahay mid dhinacyo badan ka iman karta marka laga eego dhinacyo kala duwan, qoraaga buugga Ryan Holiday waxa uu uga jawaabayaa su'aasha sidan: qabtu waa inaad muhiimadda noloshaada u aaminto si aan caafimaad qabin ama si aan sax ahayn. tusaale ahaan, waa inaad naftaada ka dhaadhiciso inay tahay mid dhammaystiran oo u qalanta wax kasta oo wanaagsan, balse haddana aanad la iman waxa ay muhiimka tahay inaad la timaaddo si aad u gaadho waxa wanaagsan ee ay naftaadu u qalanto. waxa keliya ee kaa hortaagan inaad raacdo dariiqa saxda ahina waa inay aaminsan tahay naftaadu inay saxan tahay oo aan laba sixi karin. sida uu qoraagu ku xusayo buuggiisa, waxa uu leeyahay waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay sababta dad badani u gaadhi waayaan waxyaabaha ay ku hanwan yihiin, ama marka ay shay ku guulaystaan ay u sii horumarin waayaan, ama marka ay ku khasaaraan himilo ay lahaayeen ay ugu adag tahay inay qaataan mas-uuliyadda wixii ka khaldamay. wuxuuna qoraagu jawaab uga dhigayaa saddexdan su'aaloodba inay qabtu sabab u tahay, iyadoo u soo kala gelaysa nolosha qofka saddexdan qaab. qaabka koowaad, yididiilada ama asbayr. aadamuhu sida guud waa kuwo ku nool yididiilo si ay u gaadhaan waxyaabaha noloshooda muhiimka u ah. haddaba si ay yididiilada howleed isugu beddeli karto hawshii aad rabtay in aad qabato oo aad ku guulaysato, waxaad u baahan tahay inaad la timaaddo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah. tusaale ahaan, ka soo qaad inay kugu jirto yididiilo ah in aad barato luuqad qalaad sida luuqadda Ingilishka. waxa kula gudboon inaad raadiso cid kasta oo wuxuun kugu korrin karta adigoo aan u eegayn kala duwanaanshiyaha idiin dhaxayn kara sida da'da, diinta, midabka, qolada iyo jinsigaba. balse hawshu sidaa uma fududa. marka ay meesha soo gasho qabtu, waxay ku kaliftaa qofka inuu markiiba eego kala duwanaanshiyaha oo waxay iskaga gudubtaa baahidiisa. taasina waxay sababtaa inuu arki kari waayo wixii uu rabay, iyadoo ay qabtu ku odhanayso ereyada sida ma waxaad wax ka baranaysaa qof kaa yar. natiijada soo baxaysaana waxay noqotaa inuu gaadhi waayo hadafkii, oo ay noqoto un yididiiladu weligeedba mid qofka maskaxdiisa ku taagan. qaabka labaad ee ay u soo gasho waa guusha ama success. sida caadiga ah, guushu waa mid wadata farxad iyo raynrayn, balse marka ay guusha soo dhex gasho qabtu, waxay raad ugu yeelato qofka guulaysta ah laba qaab. qaabka koowaad, inay ilowsiiso inuu mas-uuliyad kula dhaqmo dadka hareerihiisa jooga, dadkaasoo ay xataa ku jiraan dadkii guushiisa garbaha ka ahaa. maxaa yeelay waxaynu ognahay qof kasta oo guulaysta inay jiraan dad guushiisa ka dambeeya, kuwaasoo mar walba la garab taagan talooyin iyo tusaalayaal wax ku ool ah. balse guulaystaha ay raadaysay qabtu wuxuu isku arkaa inay guushu keli ku tahay oo ay la dhalatay. qaabka labaad, inay guusha yare ee uu gaadhay ay u noqoto taallo uu mar kasta xuso, waxayna guusha yare ee qabtu ku lamaan tahay ka hor istaagtaa inuu horumar ku samayn kari waayo oo uu sii wadi kari waayo kobcinta iyo horumarinta hawsha uu ku guulaystay. maxaa yeelay mar kasta guushu waxay kaaga baahan tahay inaad la timaaddo farsamooyinkeeda cusub, kuwaasoo kuu horseedi kara inaad mar walba ku guulaysato. qaabka saddexaad ee ay dadka noloshooda u soo gasho waa khasaaraha ama failure. sida iska cad, howlaha adduunka ee la wadaa waa kuwo lagu khasaaro. inta badan aadamuhu waxbay ka bartaan wixii sababta u ahaa khasaarahooda, waxaana jirta laba halkudhig oo dhiirigelinaya inay aadamuhu khasaarahooda wax ka bartaan. your best teacher is your last mistake. macallinkaaga ugu fiicani waa khaladkaaga ugu dambeeya. failure is the exact process of exact success. ama khasaaruhu waa habka saxda ah ee ay leedahay guusha saxda. balse sidaas waxba uguma muuqdaan qofka ay biyo dhigtay qabtu. maxaa yeelay way ku adag tahay inuu qaato khaladaadka mas-uuliyadda wixii uu khalday, waxayna qabtu ku khasabtaa inuu raadiyo cid uu dusha ka saaro inay ka dambaysay jabkiisa. qoraaga buuggu
wuxuu kugula talinayaa inaad saddexda qaab ee ay qabtu u soo gasho nolosha qofka u isticmaasho formuladan equal plus iyo minus si ay qabtu u noqoto mid caadi ah. waxa uu ku leeyahay marka aad joogto yididiilada isticmaal equal, taasoo macnaheedu yahay inaad cindiga ku hayso inay jiraan dad kugula tartamaya waxa aad rabto inaad ku guulaysato. taasina waxay kaa caawinaysaa inay qabtu isu beddesho damac ku dhiirigeliya. guusha markaaad guusha joogto isticmaal plus, taasoo ah ogsoonow inay jiraan dad kaa sarreeya oo ay tahay inaad higsato. guuldarrada marka aad joogto guuldarrada isticmaal minus, oo iyaduna tahay mar kasta oo aad khasaarto inaad xasuusnaato inay jiraan kuwa khasaaray oo kaa sii hooseeya. taasina waxay kaa caawinaysaa inaanad niyad jabin isna dhiibin. qoraaga buuggu sidoo kale waxa uu kala caddaynayaa farqiga u dhexeeya damac iyo qab ama ambition iyo egoism, kuwaasoo laga yaabo inay dad badan iskaga khaldan yihiin. damac waa inuu qofku isku dayo inuu ku wanaagsanaado hawsha uu ku jiro si uu guul u gaadho isagoo aan ujeedkiisu ahayn ha laguu hambaliyeeyo iyo caan noqo. qabta waa inuu qofku waxa uu qabanayo u qabto si uu u helo hambaliyo iyo caannimo, iyada oo aynay isaga muhiim u ahayn inuu xirfad u leeyahay hawsha uu qabanayo iyo in kale, balse ujeedkiisu yahay ha lagu arko iyo caan noqo. sidoo kale qoraaga buuggu halkan wuxuu ku soo koobayaa qaar ka mid a khataraha qabta. waxay dib inooga riddaa waxa ay tahay inaynu qabanno, waxay dishaa xidhiidhka aynu la leenahay dadka kale iyada oo inoo horseedda inaynu aakhirka soo istaagno gawaan cidlaa. waxay inagu keliftaa inaynu khalad kasta oo inaga dhaca aynu u raadino cid aynu ku eedayno oo aynu saarno mas-uuliyadda khaladkaa. sidoo kale qoraaga buuggu waxa uu halkan ku soo koobayaa iyana habka iyo garaadhigashooyinka aad ku maamuli karto qabta. isku day inaad arday u noqoto nolosha. raadi qof kaa aqoon badan ama kaa xirfad badan si aad wax uga barato. aqoonso waxa ay tahay in la ogaado in uu yahay waxa gudahaaga ku sugan, taasoo micnaheedu yahay ku dadaal inaad isbarato. ugu dambayntii, kuwa doonaya inay noqdaan qaybaha ugu wanaagsan ee noloshoodu waa kuwo u diyaarsan inay noqdaan xigmadyahanno. inaynu wax ka baranno qabteenna waxay muhiim u tahay inaynu nolosha hore ugu soconno. mar kastoo ay kugu sii weynaato qabtu waxay kuugu jiiddaa dhulka si daran. marka aad dhacdo naftaada dhulka u dhig xaqiiqada. shaqada macquulka ah ee aad rabto inaad qabato waxay kaaga baahnaan doontaa diiradsaad rasmi ah iyo soo jeeddaba, laakiin uma baahno damac maskaxda uun ka guuxa. ego is equal one of knowledge, oo ah qabtu waxa ay ka soo hor jeeddaa aqoonta.